السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادا عشر كله أو حيسله وحاربنا مانتا إن أسلا فيرينو عشر أرديدا بدن كود دهين شرحتان كيسة إن أعتقد إن شرحتان كيسة صفي عن لو سوعليو إن عشر كاسوا نحوها أوجه ريو إن سواحليجا أهنا عشر هالبوله هو كهذا الك سواحليجا عشر كان هدا فهمتو ان waxyaabaha u baahanayso waa sheegi doona video ku sheegi doona en muhiimada cashirkan waxa waaye waa naxwaha ugu horeeyo ee Swahiliga fadlan xoog saar en lana soco videoga bilowgiisa ilaa iyo dhamaadkiisa saadan waxba u misgarenin mise aadan meeshaas video gudihiisa waxba u weyn waxa idinka codsanayna in channelka idinka codsana in channelka taageero ardayda kale la gaarsiiyo in lagu faafiyo wixii platform any platform ay isticmaasho ardayda kale saa u gaarsiin lahayd in falkeeda ina gasho isla fiirina cashirka waxa waaye waa nafsi waqti iyo ficil waa nafsi wakati na kitenzi iyo ficil waxaarna marka nafsiyada ina gooni u sharaxno waqtiyada gooni u sharaxno ficiliyadana inta qaadanay inta kuwa koobana qaadan doona sa jumlooyin ugu dhisno tusaalooyin ugu bixino waxa fiirin doona nafsiyada nafsiya kwanza nafsiga ugu horeysa Swahiliga waa nafsige waa mimi aniga mimi wa aniga maxaa u taagan ni mimi wa aniga waxa loo isticmaalaa ni wewe wa adiga waxa loo isticmaalaa u wewe adiga waxa loo isticmaalaa u yeye asaga mise ayada yeye asaga mise ayada maxaa loo isticmaalaa a sisi annaga maxaa loo isticmaalaa tu maxaa u taagan ayada tu u taagan nyinyi adinka maxaa loo isticmaalaa mise ma u taagan nyinyi wao loo isticmaalaa waona maxaa waaye waa ayaga saddexda nafsiyo ugu horeyso mimi wewe iyo yeye jamacyashooda waa saddexda nafsiyo ugu dambeeyso sisi nyinyi iyo wao mimi jamaceeda waa sisi wewe adiga jamaceeda waa nyinyi adinka yeye asaga jamaceeda waa wao ayaga taas ogow waa dheeraadi waxa u imaanayna marka waqtiyada waxa haysanaa 4 waqti oo meeshana ku macnay doono hal waqtina gooniya dhigi doona kaas gooniya loo macnay waan idin sheegi doona video gudiis waqtiyadu waxay kala yihiin uliopo hadda la joogo uliopita mar hore la soo dhaafay ujao waqtiya la gaarin timilifu wax yar ka hor la soo dhaafay waxa u kala taagan isla fiirino uliopo waqtigan hadda la joogo waxa u taagan na uliopita waqti mar hore la soo dhaafay waxa u taagan li adhow uliopita ujao timilifu jumla ku dhax isticmaalaya ma lahan la soo waxa isticmaali doona waxa u taagan kaliya uliopita li au taagan ujao ta au taagan timilifune me au taagan وعارفنا وقتيدا ficiliyada in asal fiirno marka ficilada Swahili way badin taas darteeda u dhahay luqadda dabarnayso any language ahaato may it be English may it be Swahili may it be any language and ajcalan ladina barato waxa xoog saarta mar walbo ficiliya siiba kuwa aad ku bilaabaysid inaad xifdiso waa ficilada la isticmaalo taasna baritaanka luqadaha sida ugu fudud lagu barto mara goon u sharxi doona insha Allah now ficiliyana isla fiirino soma
akhri, soma, akhri, cheza, ciyaar, cheza, ciyaar, kula, cun, kula, cun, kimbia, orod. afartaan rabnaa inaan isticmaalno mise hal loo ma ka isticmaalina tusaale ahaan see u isticmaalina haddaa rabto inaa hadasho narudia oo ku soo celina haddaa rabto inaa hadasho waxaa kow hadalkaada oo ka bilaabana waa laba mid inaa adiga iska hadlayso mise inaa qof kale ka hadlayso ama qofkaan qof ku hortaagna aad la hadlaysaa nafsi kale inaa isticmaalayso naftaada aa ahayn ha ahaado asaga ha ahaado ayada ha ahaado annaga ha ahaado idinka ha ahaado ayaga haddaa mar miimi isticmaaleynin nafsiyo kale ka hadlaysaa labadaas haysataa waxa kaloo aa haysto waxa waaye waqtigaas qofkaas wuxuu sameeyey iyo waqtiga waxa sameeyey so waxaa laga rabaa nafsi lagu daray waqti lagu daray ficil inay haysato si hadalkaaga oo u bilaawdo waxyaabahan kaloo diidmada ah mise xiriiriyaasha ha ku dambeeyaan kowga hore nafsiga ka hadlaysa inaad taqaanida laga rabaa isfahan amalena waqtiga ka hadlaysana inaad aqoon u leedahay wixii oo sameeyay inay kugu cusbanaato laga yaabo haddii wixii oo sameeyayna aaba heeso macnaheeda aad taqaano nafsiga iyo waqtiga ha qaldin that is the biggest mistake one can do because haddaadan nafsiga iyo waqtiga aadan macnaheeda aqoonin ay ku kala socneen nafsiga ka hadlayso aadan aqoonin tusaale ahaan oo kale waxa arkay qof aa dhahayo waa soo socda haddaan imaana intuu ni isticmaal lahay oo isticmaala horeyna wuxuu dhahay mimi anakuja bal waxa noo qoran fiiri mimida maxay u taagan aadaana maxay u taagan tahay aada yeeye u taagan tahay qofka yeeye ka hadla asagoo ka hadlay qaladaadka ugu horeysa dadka ay galaan ee siiba Soomaalida ay galno waxa way qaladaadkaas ka mid ah mimi anakuja aniga waa soo socdaa horaba aniga wuu soo socdaa hodhay aniga wuu soo socdaa asagoo aniga ku hordhay mimi oo dhahay gadaal hadan ka bedelay aadaas oo isticmaalay now as la fiirina marka ina cashirka muhiimadiisa hadda ina galno waaye isku dhijiskiisa nafsiga lagu dhijiyo waqti lagu dhijiyo ficil haya su'aal ahaan oo kale waxa qaadanaynaa mimi waxa u taagan kaliya qaadana mimi waa ka taga because necessary ma ahan muhiim ma ahan ina qaato hadda dhawaa repetition ana isku soo celina hadda ina mimi da qaato dana ni ida qaato waa isku soo celcelina so ni ida qaadana waxa dhaha ni waxa ku dhijinaa waqti saddexdan waqti afartan waqti na li ta iyo me afartas mid qaadana laba waqti isku ma qaadan kari hal waqti ya qaadana ama ina hadda wax hadda sameeynayo ina sameey doono ina wax yar kor sameey wax ka dhaxay mana so waxa qaadana na tusaale ahaan ni ida ana ay taagan tahay nacdo waqtiga waxa ay sameey u taagan tahay oo hadda ina waxan sameeynayo ay u taagan tahay laakiin waxa iga maqan wixii ay sameeynayo so wixii ay sameeynayo ina ku dhijiyo so soma ku dhijinina tusaale ahaan waxay noqonay ninasoma wax space no ma dhaxay la soo ninasoma waan akhrinayaa halkaas ficil isticmaalna si oo loo fahmo ninasoma waan akhrinayaa soma hadda daana akhrina waxa raba inaan dhaho mar horaan akhri aniga wiil iska hadlaayo nafsi ma bedelayo marka hore halkan ficil rabaa ina halkan nafsi u afarta waqti ku isticmaalo nadhani tuko pamoja waa isla socona umalena so maxaa sameeynayna ni ida qaatay mar horaba ina ka hadla raba ni li soma mar horaan akhriyay okay tii kora ku laabanayna oo ni na soma ahayd ni iyo na hadday isku dhagto nafsi waqti kale ma ahaniya nafsi kale ma hadday ni iyo na kaliya isku dhagto ni na soma hadday lacala noqoto tusaale ahaan oo kale ni na soma meesha waxa ku soo gaabin kartaa nasoma ni na soma inta dhileed nasoma ku soo gaabin kartaa so halka waxa soo gaabin kartaa waa taas kaliya markay ni ina oo ficil kale oo raaco ni nacheza oo kale nacheza ku soo gaabin kartaa okay waqtiga ta isticmaalno wili nafsiga oo mimiya isticmaala ni ta soma waan akhri doona macnaha oo macnana iska fiiri ni ta soma waan akhri doona okay waxa qaadana wax yar ka hor
wax dhacay nimesoma waan akhriyay goorme wax yar ka hor aan akhriyay nimesoma waan akhriyay hadda waxaa isticmaalnay hal ficil iyo hal nafsi laakiin afar waqti kala qaadan haddii aan rabo marka inaan nafsi kala ka hadlo haddaan rabo inaan qof iga soo horjeeda la hadlo aan dhaho adiga waa akhrisay adiga waa akhri doontaa adiga wax yar ka hor akhrisay haddaad akhrinaysaa haddaan rabo inaan dhaho meesha ni'da la uun bedelaa bis meesha ni'da aa bedelaa keliya waxaa gelina wewe waxa u taagan meesha ni'da ku bedela unasoma ulisoma utasoma umesoma so macnaha dhow inaad iska fiiriso unasoma hadda akhrinaysaa ulisoma mar hore akhrisay utasoma waa akhri doontaa umesoma wax yar ka hore akhrisay waxaan maleynaa cashirka in si fiican loogu faa'iidaystay so weli waa sii bedeli kartaa meesha uud waa saari kartaa haddana yeeyaa ku bedeli kartaa yeeye maxaa u taagan adigaa gelinayna la soco waa dhihi karaa yeeye nafsiga weyn inaad soo qaato nafsiga la soco nafsiga weyn inaad soo qaadato waxa u taagan kama tagi kartid khaladaadka loola galo arday markay wax qoraan taas ka mid ah ni makosa inaad qaadato nafsiga waxa u taaganna aad ka tagto simply because nafsigii aad rabay waa qaataa leedahay maya ama qaado ama ka tag waxa u taagan qasab waa qaadane halka option oo ku banaan waxa waaye inaad nafsiga weyn ka tagi karto iyo inaad qaadan karto of which inaad qaadato nafsiga weyn waa laga fiican yahay nafsiga weyn waxa ka wada mimida wewe yeye sisi nyinyi wow kuwaas nafsiga weyn ka wada inaad ka tagto waa optional iyadoo optional ah asaasa ka si fiican because waa adila isku soo celcelinaa hadaa dhaho mimi ninasoma waa anigoo dhahay aniga waan akhrina mise aniga mimi nilisoma aniga waan akhriyay hadaa dhaho aniga waan akhriyay iyo hadaa dhaho waan akhriyay tee fiican waan akhriyay fiican so waan akhriyayda waxa lagu soo koobaa nilisoma waa isfahanaa malena hadaa dhahdane aniga waan akhriyay mimi nilisoma so waa fahmi kartaa farqiga u dhaxeeyo soma so waxaan malena cashirkaas in lagu soo celiyo in la dhihi doonin halas ay ku soo gabagabeynayna channelka yaanan hilmaamin sorry yaanan hilmaamin waqti halka waqtiyo soo haray oo hu ah waqtigaas hu la dhahaa waa wax mar walba dhaco waqti oo wax mar walba dhaco hadda inta waqti oo waxaan la sameeyay doon hadda la sameeyna waa aragnay waqtigan wax oo socdo waa continuous way so hudaas gooniya loo macnayna gooniyadiisa u macnayn doona waxa u maleynaa cashirka in si fiican looga faa'iidaystay yaa la hilmaamin channelka in la taageero ardayda kale la gaarsiiyo lagu soo biiro koorsada oo dhammaystiran ha ahaato online-ka ha ahaato qaybta iskuulka haddii aad u baahan tahay home tuitioning kulli waana la soo socodsiin kartaa nambarka meesha ku qoran yahay wabilaahi tawfiiq